بسم الله وحسكو وجرتها دور قيبات قيبتها واناتومي لابكي inay ku bartaan structure-kii ama qolfoofkii xoolaha maadaama xooluhu kala duwan yihiin imika waxaan u diyaarnay loodii iyo neefriya u diyaarsan lafiyo furan xagga sare noo yaalin waxaan kala qabanaa qaybta qaliinka oo miiskaasi wuxuu noo yahay tiyaatar waa neefkan xoolaha ku qalno xagga xunaya qalabkii qaliinka marka waxaa la keenaa xoolo kala duwan kuwa gaari jiray kuwa ilmi ku qalloocday kuwa baca ku dhageen inta waanu qalnaa si marka volunteer ah wax lacag lagama qaato ardayda marka waxay noqotaa practical حاجة وحنا نقول شر دوينكي لقو دويني أردنا كورس فرمكوتي من دوينك ما كبرنا يان وحقوقات أنا براكتيس لكن أردت الدواء كستو قرن يصير الله استعماله يقابل الله استعماله حاجة صار نقول وحنا نقول شيء باركي ولقو باري ديانوس اللافكي ميكروبيولوجي بارستولوجي ولقو باري مركز حونا دي حالها يصير جامعة جوليس وجامعة كلية كفرن لحدة قبل جمهورية سومالان أي ككوبنت هاي وجامعة مقلة أو وحي الشنية تبن جرستي سنة كان أرديدي يوم تقنا رسل كيجي سومالا وحيابا بدن بيكترين حتى عافي ما تهاي حتى تهاي إنجنيرين يا حتى تهاي سوشيال ساينسز كبا مركا جامعة وسير وجامعة كلية أكريديشن كله جامعة إيست أفريقيا كيالا أو وحي كرجستر جريسن تهاي والله باري كرتانه ISIC ururka la yiraahdo ay ku midoobeen ururada muxuuha maxalliga aan dawliga ahayn ee jaamacadaha iyo collegeska waxa naga soo raacay iskuulka la yiraahdo Young Muslim Academy afartii sano hore waan dhamaysanay sanadkii shanaad baa noo bilaabmay waxaan ku jirnaa dib u cusboonaysiintii taasina wax ka qayb qaadatay Soomaaliland lafteeda inaan promote garayno oo la yiraahdo jaamacadan aan wadan aan la ictiraafsanayn jiray haddana accreditation kale maxay tahay sidoo kale وجامعة كلية يمكن واحد بوركا إن الدبي على واحد شيء collaboration على الله إن هاي جامعة ماليزيا أو واحد نقولنا جامعة إلكترونيكس كا وجو محوها وجو وناكسن مركانو information نبضن يحيى بدن على قاضي مركا توس واحد برنامج كأول بحين دونا وسير جوليس يوم محوها جامعة إيشيا يونيفرسيتي أو أرتقى جوليس كبحة توس وحول تجي دونا حق ماليزيا شهادة توس قاعدة دونا يسقط تجوليسنا قاعدنا مركا ده وحنو قلنا أنا جو إفوت كيجي إن أرضي جوليس كبحية وبركت كان هلا ما تقعنا تيرينا وهلا إنتنشيفنا وهلا وحيابهن كجد وإنها جامعة كلا وضع كي أرضي أنت بدن نودر بدان لما نكون بنية واوي هذا إنجنير انت هاي هذا وسارة هاي هذا لما نحيد بنقول وده كنا مركز دوسير وجامعة هذا ما موليسي أو ميرتادو هو كان سنيد كه ترسنيد كسودو. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنتوا تاريخ التهاي شنية تبنكي بشي كوية تبنات سنة كلا كوني لباتن وفدي وهو جامين وزير كوزارة وحبر الشرعية ساينس كاي جمهورية سومالان أحمد محمد ديريه وزير كحجين كأحمد حسن أحمد تاجر يا أنا قاسمه جودة تعليم تصريح يا قاسمها بلانينكا واحدة بلانينكا وحنا صوب وقني جامعة دنقوليس أو جامعة وين وسدا والشيخ إسحاق كدسان قبل هذا سومالان دمان من إلا كوب إلا بورمك إلا إيو إرجابو ميل والبكوت هلا وأنا جامعة برايفت كجامعة دوجوين بوقشة إنه حقيب كتهاي بوقشة بدن وكنت جدونا جامعة هدلك هديهين كويا العاصمة هرجيسية قبل هذا با marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta ka soo qayb galno wafdiga wax badan indhaha iyaga aanu ku aragnay aad iyo aad waxaan ugu boorinaynaa maamulka sare ee jaamacadda Goolis sida quruxda badan leh inoo soo dhaweeyeen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta waxaan joognaa jaamacadda Goolis insha Allah taala jaamacadda wanaag baan rajaynayaa saxiixta dadka danyarta gacanta u qabato way ku mahadsan yihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi. maanta oo ay taariikhdu tahay 16 bishii koowaad waxa jaamacadda Goolis xarunteeda Hargeysa booqasho ku yimi wafdi wasaaradda waxbarashada ka kooban oo ay tahayna booqashooyinka aan ku tagno goobaha waxbarashada si aan u ogaano xaqiiqada iyo xaaladda ku sugan anagoo isagoo waxba isu kaayay seeganayn haddana ay tahay waxa soo biiray iyo waxa dhilmay in aan soo booqano marka maanta Goolis baan nimi ma sha Allah waynaga aragnay waa jaamacadaha waddanka kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay 12 kuleedood taasoo jaamacadaheeda kala duwan sida ay maamulku noo sheegeen arday 7,000 ku dhowba dhigta jaamacadan waxa kale oo ay jaamacadaha waa jaamacadda gobolada oo dhan bay ku leedahay laamo jaamacadaha kalena waxaan rajaynayaa
ama intay iskaashataan ama dee qof waliba wuxuu ku fiican yahay uu ka furo gobolada jaamacaddan waxaa kaloo aan aada ugu faraxsanahay in xoolaha oo laf dhabartii dhaqaalaheena iyo nolosheena ah weli aynu dee lagu barto waana waxyaabaha aanu mudnaanta wasaaradda waxbarashaduna ay siinayso waxaa kaloo intii aynu joognay aynu soo aragnay kuleedihii mudnaanta inoogu qornaa ee xitaa wasaaraddu ay deeq waxbarasho ay ku bixisay oo ay ka mid ahaayeen xoolaha beeraha engineerinka technology-ga iyo kulliyadaha la midka marka aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaa kaloo ugu mahadnaqaynaa jaamacaddu deeq waxbarasho ayaanu beri dhoweyta sameynay wasaaraddu samaysay oo qaab loo qiimeynayo cilmiyeysan oo dhibca lagu kala helayo isla markaana si transparent oo guddi agaasinka guud ka tirsan agaasimaha guud hogaaminayay iyo agaasimaha planninka afarta agaasimo ay ku jireen ayaa soo kala xuleysay liiskii waxa loo gudbiyay jaamacadda Hargeysa ayaa ugu badnayd ta ku soo xigtay waxay golis marka waxaan aad ugu faraxsanahay jaamacadaha qaar baa hadalka keenay oo aan inkastoo aanu cidna sidii lagu heshiiyay la yeelay sharciga ahayd waxaan ku faraxsanahay golis inaanay waxba ka soo celinin ilaa 40 arday ayaan u soo dirnay inay sidoodii ku qaadatay oo iyagoo waliba jaamacad private ah oo aan kuwii public ahayn haddana siday u shaqeynayaan ay tahay sidii jaamacad public oo kalaaskii imika aynu soo marinay ardayda mid ka mid ah wuxuu inteeda halkaa fadhida 3 meelood marka loo qaybiyo ugu yaraan meel baa deeq waxbarasho ay golis bixisay waa contribution ama waa waxtar wanaagsan oo wadanka ay u geysatay golis iyo sectorka waxbarashada u geysatay jaamacaddana ay u geysatay qofka jaamacadda asaasay ilaahay caafimaad ha siiyo Saciid iyo dhammaanteedba waa ajar iyo xasanaad meel u yaala waxa aynu aragnaa laabkii xoolaha waxaan ku darayaa waxaynu u baahanay in aynu jaamacaduhu ay noqdaan meesha wadanka laga hago marar badan waxaan filayaa in madaxweynaha le aynu aragnay jaamacadaha baa adduunyada haga oo aanay noqon class wax lagu dhigto iyo practical lab laakiin jaamacaddu ay hogaamiso siyaasadda iyo qorshaha iyo horumarinta wadanka oo tusaale ahaan halkan waxaynu ku jirnaa laabkii xoolaha haddii cilmi baaris lagu soo sameeyo xoolaheena caafimaadkooda tarankooda kidney rate-ka intee leeg baa sanadkiiba ku korona kidney rate-kooda ma hoos buu u dhacaa mise kor buu ku dhacaa oo forecasting lagu sameeyo leedaa 100 years boqolka sane soo socda xoolaheenu hadday rate-ka ama growth rate-ka xaddiga korodhka intaa leeg ay ku socdaan ma ku filan yihiin dadkeena oo intoo la isbarbardhigo korodhka dadka iyo korodhka xoolaha la yidhaahdo imika korodhka xoolaha yar levelka ku korayaan waxaan maayaa inuu 1.9 yahay halkay dadkuna kaga korayaan 2.9 1% bay dadku dheeri korodhka dabeetana dee isticmaalku markuu saa u bato waxaa laga yaabaa 100 sano ama 500 sano kadib waa inuu saadaalin horta xoolo ma jirayaan iyo mise dabeetana la yidhaahdo sidee loogu sameynaya ama sida imika loo dhaqay la dejiyo caafimaadka sidee loo kordhinaya kidney rate-kooda ama inta kordhaysa halkan waxaan ku arkayay laabo fiican oo technology iyo engineering ah engineering laftigooda research lagu sameeyo guryaheena la dhisayo engineering sida loo dhiso maxay noqon kartaa building imika la dhisay 100 sano kadib siduu noqonaya marka dabeetana ay noqoto cidda fiid garaynaysa ama quudinaysa siyaasadaha ay soo saaraysa dawladdu wasaaradda hawlaha guud ama engineering qablisan inta jaamacaddu tagtay research waxa ka soo baxay waxaan u baahan in la soo saaro building code noocaasa building code imika weyn leeyahay laakiin dee tusaalaha waxaa lagu daro xoolaha wasaaraddii xoolaha waxbarashada faculty-gu intuu ku sameeyo tayada aan waxbarashadeena dee talo loo keeno wasaaradda waxbarashada la yidhaahdo waxay u baahan tihiin inaa maxay ay yeeshaan hadday jirto kulliyadda sharciga ama political science ama dowladnimada lagu barto dee ay wasaaradda daakhiliga iyo waxtar ku biiriso booliiskeena iyo xitaa ciidamadeena marka cilmigu hadduu markuu inahago ayaynu horumar gaadhanaa dee marka aad baan ugu mahadnaqayaa imikaba waa samaysaane inaynu sii kordhino wasaaradda waxbarashaduna waxay idinku ballan qaadaysaa dee idinkuba haddaa deeqdii waxbarashada iyo wixii aanu wadnay baana la wadaan
annaguna wixii aanu idinla garab istaagi karno inaanu idinla garab istaagno jaamacadaha public iyo kuwa private-ka wasaaraddu way u siman tahay qaar dee dawladdu ha yeelato ama public ha yeesho laakiin haddana kuwana mas-uuliyad baa naga saaran wasaaradda waxbarashada marka la leeyahay maaha qaar gaara dee waa jaamacadahoo dhan marka idinka laftigiinu waa inay saa isu artaanoo jaamacadaha aanu horumarkooda ka shaqaynayno maaha regulation koo qura iyo inaanu ilaa liisan samaysta kan yeela laakiin jaamacaddu sidee ku horumaraysaa iyada laftigeedu taana dee waan iskala shaqaynaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakatu